السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان السجاه يحن نقدونه مقال كجهري مقال كجهري أي نقدونه أن كسو كوب أي بوجاكتا أن أخريي أن سلي هي تذكر أحبي وتريان نلش إن مال لها أنا وين كفولين كرنا وين حوي طبقي كرنا سيدا وجد بوجا كوبات جهرية وإحنا نسيب ويا شيء إن نقادنا بوجا لا يقانو خذها قاعدة بوجا عربية يعني سعودية أي قري دانا قلطانين بوجا نسجاه حتى صومالية معني سوح نقريان هو حيركن marka wuxuu ka waramayaa tiraba 22 xeer oo aad noloshaada si joogto ah aad kor ugu qaadi kartid tayadeeda waa xeerar ka caawinaya inay dadku waxa weey aad kasbato waa xeerar ka caawinaya in hawluhu ay ku qabsoomaan waa xeerar ka caawinaya in dhibaatooyinka aad kaga bixi kartid marka 22 qaacido muhiim ah ayuu soo ururiyay waxaan isku dayinta ugu muhiimsan inaan dul maro xeerka koobaad wuxuu bixiyay 5 daqiiqo oo kaliya 5 daqiiqo kaliya wuxuu ka waramayaa in arrimaha aad adag ee aad ka cabsi qabtid tusaalahaan kale ardayba imtixaanka ku soo dhawaaday kooraskana ma buu akhriinba marka intuu ka cabsan lahaa wuxuu ku leeyahay bal 5 daqiiqo kaliya hawshaasi 5 daqiiqo hadii marka aad siisaad aragtay inay fudud tahayna dawaad ka sii wadi wad macaansan hadii kalena ugu yaraan 5 daqiiqo waxaad ka akhriday daw wax la'aantii miyay dhaamin marka 5 daqiiqo oo kaliya ayaa la yiraahdaa video dhameystirna oo ka diyaariyay ee YouTube channelka dib ugu noqo ama page-ka kan ka inta baan soo dhigay laba xeerka labaad waxa loo yaqaan shaqadaada ma aha shaqadaada ma aha wuxuu ka wadaa qofku markay dhibaato ku dhacdo ama ba hawlo ilaahay uga baahan subhanahu wa ta'ala inuu ilaahay u hirgeliyo duceysanayo inuu ilaahay ducadaada uu aqbalo waxa weeye oo wax dhacda inta badan in haasi ahati habka u dhici doonto aad ogaata shaqadaada ma aha bimaana qof ka xanuunsanaya ilaahay buu bari ilaahay ilmahayga bogsi sida ilaahay u bogsiinayo shaqadaada ma aha isagoo dhakhtarna aanad geyn buu ku bogsan karaa ilaahay qof buu soo diri karaa faatixada ku akhriyo ku kici karaa dhakhtar buu ilaahay soo diri karaa wanaagsan oo shimbirkiisa ka heli karaa marka shaqadaada maaha inaad waxa raacdee hadii dhibaato ku dhacdo ilaahay u jeeto subhanahu wa ta'ala sugna farajku si degdeg u fugu iman doona idamka alle xeerka afraad ama aan ilaahda xeerka saddexaad ee uu bari waxa fox waa inaad shay u dhug yeelato ama aad shay ku foognaatid ama aad diirada aad saartid haday aqoon noqoto isku day inaad hal arrin oo kaliya aad barato hadaad jaamacadii digri diyaarinaysid ku dadaal inaad hal digri oo kaliya diyaarso hadii aad course baranaysid hal course oo kaliya baro hadii aad luqad cusub baranaysid hal luqad oo kaliya baro iska ilaali inaad farabadato hal kaliya ayaa kugu filan marka dad yoga carcarka badan leh ee xamaasada badan leh waxa filay inay qodobka ka helayeen hadii ilaahay yiraahdo inta markan ku xigta waxa ku xiga waxa weyn ma aha inta badan waxa dhacda in dad yoga loo cudur daaro marka haduu qofi waxa weeye uu kugu gafo hadii uu qofi kugu gafo oo kale in waxa weey aad u cudur daarto waa wax muhiim qof bad la balansan tahay oo kale balankiibu ka tahay intaad canaan dusha aad kala fuulo lahayd bal u yar fiirso waxa ba suurtagal ah in qofkan cudur daar uu hayste marka inaad dadka aad u cudur daar raadiso qofkii ereyga qaldan ku goori hadii aad qaldanaan aad dareemayso qofkii wuxuu ku balan qaaday kaaga dhacay ee aad arkaysa inaan qofkaas wixii aanu kula iman mar walba ku dadaal marka in aad waxa weeye aanad wax weyn aanad ka soo qaadin cudur daarna dadka u raadi waxba kaamay tagin waa xeerka ku xiga waxba kaamay tagin qof baa nin weyn dabeedna gadaal buu arkay inaan quraankii diinteen waxba ka hayn waxba ma leh ka daba tag waqti uu kaamu tagin dad iyo bayago sheegan iyo 9 jir iyo wixii ka badana quraanka dib u xifdiyo qayba maalintii waxaan arkay gabadh PhD diyaarisay iyadoo dhowr isteetana marka ma aha wax weyn waxna kaamay tagin wax allaale wax kasto sleedo ku dhaafay hadda dib ugu dibitay karta oo hadda qof weyn tahay wali dhalinyarada la soco inta markan ka yimaado qodobka kan ku xiga waxa loo yaqaan cari naftaada awooda ayaa ku jirta ilaahay inuu tirsan aduma ogid marka awoodaha waxa lagu soo saaro waxa loo yaqaan carinta muuqaal baan ka diyaariyay loo yaqaano cari naftaada isla sidoo kale muuqaal kale ka diyaariyay aniga naftayda cariyay dabeedna labaduba meesha way ku jiraan qoraal baan ku ciriyay inaan wax qoro habeen walba qormaan soo gudbiyo kaana wad ka eegan doontaa wixii ka bartay waxa ku xigta qodobka loo yaqaan hadda samee ama ba imika waxa dhacaysa geeri baa dhacaysa dabeedna saaxiibkaaga baa geeridaas ku dhacday inaad la hadasho wad awood laakiin waxaad leedahay hadda hawsha iska dham hadhow baad la hadli doontaa hadhowdii bari bay noqon baridiina ta ku xigtay noqon dabeedna waxaad arki doontaa adu saaxiibkaana aan u tacsiyadeyn waxa weey waqtigiina uu ka tagay marka inta ceebtaasi dhici lahayd imika baliye hadda inta waxaad gacanta aad ku isid faraha ka qaato qof baad guur waxa weeye guursadii imika u hambaliye qof baa xil hadda loo magacaabay imika u hambaliye qof bay dhibaato soo gaadhay hadda la hadlo ducee iska ilaali inaad dib dhigto waxyaalaha muhiimka ah waqtiga hadhow aan aqbali karin imika ayaa muhiima xeerka ku xiga waxa loo yaqaan amaantu waa dahab
xeerkan wuxuu bixiyay ninkan qoraag ahi haddaad qofi waxay kaaga xidhantay amaad baahi aad u qabto waxa muhiim ah inaad ammaanto ammaantuna ma aha dee beenbeene qofkan wuxuu ku wanaagsan yahay sheeg rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii wanaagsanaa bay ka mid tahay marka haddii qofi waxay kaaga xidhantay haddii aad qof tala siinayso haddii aad qof rabto inaad toosiso intuba ilbaabka aad furihiisa wadnihiisa aad ku furan kartaa waa inaad ammaantee ammaan dabeedna wixii aad u raacin kartaan u raaci intaa marka laga yimaado tijaabi waxyaalaha cusub inaad tijaabo aad samaysaa waa xeel isaguna muhiima aan isleeyahay aniga lafteedu sanadka wax badan baan ka faa'iiday isku day in waxyaalihii hore aanad wax ka mid ah tijaabiso tusaalahaan oo kale haddaad shaaha cabto bal isku day inaad bunka aad hadda aad bilowdo haddii aanad waxa weeye tusaalahaan oo kale saamaleelku kugu badnaa isku day bal inaad faa'iidada aad dhadhamisid inaad xilli hore aad seexato haddii akhrisku uu aad iyo aad kugu adgii bal bishan isku day inaad buug aad akhrido naftaada kuna kalif marka waxaa loo yaqaanaa tijaabi ayaa loo yaqaanaa oo naftaada waxyaala cusub ayaad bari kartaa aad samayn kartaa hubi inta badan dadyowga markay wada nool yihiin bini'aadmigu waxa dhacda inay dadku warar ay isla dhex marayaan aan run ahayn marka haddii qof walaalkaayo war lagaaga sheego in badan bay dhacday inay waxaasi been noqdee mar walba xeer ha ku noqoto war hoy hubi adigu la hadal haddii qof lagu dhaha erey baa kugu yidhi hubi marka inaad dadka waxa lagaaga sheega aad iska hubisaa waa muhiim xaasidkaa iska badan xeerkan ku xigay ka 12aad wuxuu noqonayaa cawil waxaan u bixiyay ujeeda tacwiid baa carabi loo yaqaana in wixii kaa qaldamay ee hore inaad dib aad u saxdo salaahana kale salaada kuma fiicnid qof taariikh salaadaad hadda tuko waliba waqtiga aad salaad la'aanta aad ku dhaaftay saad u soo caawisho sunnayaashana ku daro sunnayaana ku dhaafin qof baad salaahana kale waxbarashada diinta aad uga habsaamay imika hadda marka aad bilowdo ku dadaalkii hore ka lama laaban inaad samayso marka haddii qalad uu kaa dhaco haddii wax kaa dhacaan wixii ku dhaafay soo caawil oo ha ka daba tegin oo ha quusanin ardayda wax baranaysa oo kale haddii macallin wax uu ku diro wixii aad ka dhacdo isku day inaad soo caawisho oo aanad hore uga gaadhin marka wax kastood ka gaabiso marka dib aad u samaynaysid waa in wixii wax ka badan aad u samaysaa ugu dambeyn qodobka aan anu ka soo qaatay 22 qodob oo qodobka 13aad inta kale aadan ku deynaysa ka soo akhrisana waxa loo yaqaan mahadsanid mahadnaq cid kasto galladii abaal kugu leh ilaahay aad ka bilaabay waalidkaaga aad ku xigsiinay walaalada dadka qaraabada kugu hareeraysan jaarka wanaagsan aad la jaarkatay macallimiintii wax ku soo bartay asxaabtaada ku garab taagan iyo cid kasto wanaag iyo galad kugu leh inaad u mahad celiso waa muhiim waa rasuulku wuxuu sheegay qofkaan dadka u mahad celini ilaahayna uma mahad celiyo halka waxaan kugu soo gudbiyay 12 xeer oo isla noloshaada waxbay kugu kordhin karaan marka haddaad luqadda carabiga aad ku hadasho tiimka luqadda carabiga aad kamid tahay wuxuu aad buu ku sharaxayaa waxa weey kitaabkaasi xeer kastana tusaalayaal badan buu sheegayaa wax badan oo ku kordhinaya waana kitaab xiiso loo iska cunsiinay si degdeg ah u dhameynaysid waxa ku rajinay khayr intii ku kulmayna xalqada mid kale xigta haddii ilaahay yiraahdo haddii barnaamijkan isaga aad ka heshay ilaa hadda magac uma hayo barnaamijkan buugaagtaan ku soo koobayo faa'iidadeedu iyo nuxurkeedana aan soo gudbinayo marka waxaan kaala tashanayaa inaad comments ka hoose aad nagu soo gudbiso maxay baa magacaynu bixin karnaa barnaamijkan buugaagta aan ku soo koobayo taw fiican oo qaadan doona insha Allah taala martiban kaaga assalaamu calaykum